أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا أقبلت يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. درسنا maanta wuxuu ku saabsan yahay zakaatul fitri waxaan ku dhex jiraa bishii Ramadaan ee barakeysnayd. bisha Ramadaan waxaa lagu khatimaa zakaatul fitriga oo ah duhratun lisaa'im wa du'matun lil masaakiin. marka xoogaha fawaadkii dadka ka dhacay xigmadaha loo jeeday waxa kamid ah xoogaagii ruuxii soonkii wax ka dhaceen ama sidoo rabaan u keenin in uu bixiyo si ay wixii ku harharay ooga tahirto masaakiintana ay ooga qayb qaataan inta la siiyay farxad oo qayb qaataan. zakaatul fitr waa waajib bil kitaabi was sunna wal ijmaa'. Eebbe subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku leeyahay qad aflaxa man zakaaha. aayad kale Eebbe subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku leeyahay wadakara isma rabbika fasalla. aayad kale Eebbe wuxuu ku leeyahay qad aflaxa man tazakkaa wadakara isma rabbika fasalla. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. روح كستو مسلمة أو نفتي سأي جوكتو بواجب كتاي بولي هاي ومدن وكو إجماع ذا إني فرط هاي روح كستو نول أو مسلمة اسكو وافق والمسلمين اسكو مخلع علماء المسلمين اسكو مخلافين زكاة الفطر قحوم كذا وواجب إليهن شروط هذا وحسد حديث كبكوعت على أن كل نفس مسلم هو روح كستون نول أو مسلم كركيسا لغا ربا هدي قرح انتي سدعين وحي دشور دن هبينك قدميس رمضانك انتي قرح ددعين وحي كهور دشور دن وا لغا ربا ان لغا بخيو صغير هذا كبير هذا حر هذا ادون هذا روح كستو مسلم لغا ربا روح كستو مسلمه با لغا ربا waxaan xigmada loo jeedayn waa tan soo sheegnay oo duhratul lisaa'im du'matul masaakiin muwaasatun bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda is caawiyaan shukri Eebbe subxaanahu wa ta'aala in Eebbe looga shukriyo soonkii noo soo taam yeelay iyo xigan badana loo jeeday waayahay. waxaan leeyahay zakaatul fitri faradu ala kulli muslimin bay ku tahan ruuxa masaakiinta marka laga tago macnaheedu faariqa u dhaxay ruuxa bixinayo iyo ruuxa la siinayo. zakaatul fitr marka waxay waajib ku tahay kulli muslim oo haysto wax ka badan quuta yawmi wa laylatihi. habeenkaas ciida iyo maalinka ciida wax ka badan ruuxi heli karo baa laga rabaa inuu bixiyo macnaha marka ruuxa masaakiin la dhihi kara la siin karaa ruux haysta habeenkaas iyo markaas wax la cuno wax ka badan zakaatul fitr asaa laga rabaa ma qaadan karo waqtiga la bixiyo zakaatul fitriga waxaa la bixiyaa kow waxay u qaybiyaan culimada waqti jawaaz oo ah in ay bannaan tahay in la hormariyo yowman oo yowmayn intuu sarsoon ka dhamaanin macnaheedu yowmayn ramadaanka intuusan dhamaanin bisha ramadaan ay dhamaanin waa bannaan tahay sida xadiidka ibnu cumar kaanuu yucduuna qabla alciidi biyowmin oo yowmayn saasuu leeyahy ibnu cumar radi allahu canhu. marka waa bannaan tahay taqdiimka in maalin iyo laba laga hormariyo bisha ramadaan intaysa dhamaan culimada fuqaada qaar waxay iska dhahan nisfu ramadaan iska dhahan laakiin sida xadiidka ku cad waxa waa yawman oo yawmayn waa waqtul jawaaz waay. waqtul wujuub oo laga rabo in waajib noqonaysana waxa waaye bidaayatu ghuruub ash-shams min aakhir yawm ramadaan waajib noqonaysa ama habeenka ciida soo gasho markii bisha ramadaan la arko wixii ka bilowdo waxay noqonaysaa waajib ruux kasta oo laga rabay aan hore u bixinin. waqtiga ugu fadli badan mustaxabkana ومن بعد طلوع الفجر من أول يوم العيد إلى لقى جارو صلاة عيد لقى جارو يعني مركي صلاة لا تكذو مالك عيدة صلاة مالك عيدة إلى صلاة اللي أنت لقى بحين تاسا أفضل بدن وقت مستحب كوقت كاسواي وقت مستحب كا إلا بحي وقت كاسواي بمعنى وقت الوجوب وقت الجواز أو يومين وقت الوجوب أو قراءة مركي دعوة مالك عيدة أي وقت الاستحباب أو مركي قراءة ذا صوب بحضو إلى markii salaada la tukado ilaa laga tukado salaada ciid laga tukado inta u dhaxayso waa wixii ka dambeeyo sadaqat min sadaqaad noqonaysa sadaqat min sadaqaat miqdaarka la bixinayo oo laga rabo ruuxa inuu bixiyo
sida culamada ay yirahdaan waa saac min quuti lbalad wadankaas la joogo raashinka laga cuno oo gaalibka u ah saaciisii waay saaca intuu noqonayaa culamadu waxay yirahdaan 2 kiilo iyo 40 garaam ama 2 kiilo iyo 400 garaam waxay u dhaxayaan aqwaash markaad jamciso 2 kiilo iyo 40 garaam ilaa 3 kiilo intuu dhaxayso bay bixiyaan laakiin culamada tadqiiqooda wuxuu u badan yahay 2 kiilo iyo 40 garaam meelahaas inuu noqdo haddii 2 kiilo iyo 400 garaam laga dhigana dhib ma laha insha allahu tacaala calaa kulli laakiin waa quutul baladkaas waay waxaan wadankaas laga cuno oo gaalibka u ah inaad bixiso waa radi waa laga fiican yahay inaad bixiso waxaa la rabaa wax la bixiyo anaga hadda matalan quudka waxa noo ah inta badan ama masagada galeyda ama bariiska noo ah ama burka oo kale noo ah iyo wixii lamid oo kale digirta sidoo kale waa ka baxaysaa raashinkaas oo kale la rabaa in la bixiyo cadadka tirada matalan haddii marka 10 ruux ay dadka yihiin meesha joogo zakada laga bixinayo min 2 kiilo bar haddaad ku dhufato waxay noqonaysaa 25 kiilo taqriiban saan u malaynayo saasay noqonaysaa calaa kulli marka raashinkaas la bixin la rabaa yaa la siinaya qaadanayo zakaatul fidriga fuqara masaakiina qaadanayo waxaan heli karin maalinkaas habeenka ciidda iyo maalinkeeda wuxuu ruuxan heli karin oo masaakiina baa qaadanayo waayahay ma banaanta in qiimo lagu bixiyo oo ruuxii bedelkii raashinka uu lacag bixiyo culimada aimatu thalatha waxay isku waafaqsan inaysan banaanayn maalikiya iyo shaaficiya iyo xanaabila iyo kulli waxay isku waafaqsan yihiin culimada waxay qabaan maya anaga madhabteena shaaficiyada qabto waxay qabtaa raashin waxaan laguma bixin karo waana xadiidkii abi saciid al-khudari wax qiimo la yiraahdo lagu bixin karo ma jirin madhab al-xanafiya banayso oo qiimaha banayso ayagana daliil ma haystaan marka culimada xoogooda waxay qabaan lama bixin karo lacag laguma bixin karo waa in lagu bixiyaa waa ka yaa laga bixinaa ruuxa naftiisa iyo inta uu biilo macnaa waxa asaga mas'uul ka yahay oo biilkiisa uu asaga bixiyo oo waajib ku yahay inuu biilo yuu ka bixinayaa waxaa laga yaabaa fi bacdi buldaan inaan laga helin masaakiin laga helina suuragal ah bal naqlin karaa zakaatulfidriga beled kale ma lageyn karaa inta laga naqliyo beledkii haddii beledkaas masaakiin joogto ma lama naqlin karo beledkaas masaakiinta joogtaa la siinaya hadday masaakiin joogin waa bannaan tahay marka in la naqliyo oo meeshii markaa masaakiin ay joogto lagu bixiyo waa bannaan tahay waa u bannaan tahay marka aan isla ilaalina marka zakaatulfidrigaas calaamadaha shacaa'ir islaamka ka mid ah aan isla ilaalino ama zakawaadka ugu muhiimsan ka mid ah aan isla ilaalino وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا.